haddii oo bitcoin rabto evc plus haysato tusaale, haddii aad rabto aapkan bitcoin adoo haysto evc plus waa ku bedelan kartaa. marka hore Somali Surf baan ku dhufeynaa, adoo evc plus haysto waa ku bedelan kartaa magaceedii bitcoin, adoo bitcoin haystana waa ku bedelan kartaa evc plus. marka hore horta adresskiina soo ku upgradeynaa, Coinbase galena, waxaa rabnaa inaan lacag nool soo diro, Coinbase galena, meeshii lacagta nool soo dir la ayaan galena, Coinbase raadinena, Coinbase waa kana. Coinbase hadaa ku cusubtaa hadda samaysatay 2 maalin ama 3 maalin ay ku soo aqbalayaan inaad iska diiwaan geliso, markaas lacag ku shuba kartaa. dadka qaar ay soo weydiiyay Coinbase ay samaysay malaya iyo waxyaalahaas camal. okay, hadda bitcoin ay iibsarabnaa, waxaan ka dooraneynaa bitcoin waa kana, sawirkaas ku dhufeynaa bitcoin, ama daarabta rasiifada ku dhufeysa, ama daarabta bitcoin ku dhufeynaa, bitcoin ku dhufeynaa. marka hore bitcoin address ku dhufeynaa, kadib waxaa taabaneynaa calaamadan transfer ayaan taabaneynaa, transferkaas ayaan taabaneynaa. marka hore addresskeena copy soo dheynaa, waxaa leedahay back xoonayso subscribe now anaano transfer ma taabaneyn, waxaa taabaneynaa transfer data meel kale ku geenaya, waxaa taabaneynaa isla sawirka bitcoin ka ku dhufeynaa, isla sawirka bitcoin ka ku dhufeynaa, meeshaas walaalahaas ku calaamadeeyo ku dhufeeyay. kadib waxaa taabaneysaa halkan calaamadan, waxaa taabaneysaa halkaas calaamada sawirkaas ma jeedaa, sug mar kale aan ku xariiqmeeyo, waxaa taabaneysaa calaamadaas, meeshaas taabaneysaa ma jeedaa ku xariiqmeeyay, aad taabaneysaa. I don't know ma ogi, laakiin Coinbase adoro video oo ka qariyaa in la duubo ma ogolo, addresska dhexdiisa in la duubo ma ogolo, laakiin in la duubo koley ma ogolo. kadibna copy aad leedahay, Coinbase in la duubo dhan ma ogolo, laakiin addresskaada Coinbase ka soo copy gareysanay. qof walba waxaa rajeynayaa inuu Coinbase karanayo bitcoin addresskaada ka soo qaadanaya, addresska meesha laga soo qaato waa garanaysaa sida rajeynayo. kaliya muhiimadda waxa waaye addresskaas inaad soo qaadatid, muhiimadda waa intaas. kadibna my account ayaa ku dhufeysaa, halkan aapka my account ku dhufeysaa. haddii login ku aan account waa ka samaysan kartaa, adiga abuur karo, sign up aad taabaneysaa, wax weyn ma ahan. kadib markaa meeshaas taabato, meeshaan lacagta ka soo direysid ayaad gishanaysaa, macnaha evc plus haysta bitcoin araba meeshaan aan gelinaysaa select labaad. haddii bitcoin haysta evc plus rabtidna korkaas bitcoin aad gelinaysaa, halkaan evc waxaa gelinaysaa evc plus. xarijanaya inaa fahantahay. hadda waxaan rabnaa bitcoin, halkaan marka waxaa gelinayna koowaad, waxaan gelinaynaa evc plus aan ka dooraneynaa, lacagahan dhan waa ka helaysaa aapka. meesha labaad select qoranta waxaa gelinaysaa lacagta lagu soo diraayo, bitcoin-ka ayaan gelinaynaa, bitcoin waa USD maahan, bitcoin ayaan gelinaynaa. kadib markaa sidaas u gelino, waxaa taabaneynaa exchanger meesha ku qoran tahay, exchanger meesha ku qoran tahay taabaneynaa. kadib markaa sidaas u gelino, lacagta ugu yar waa $6. sababtana waxa waaye Coinbase lacagta ugu yar ee bitcoin aad ka diri karto waa $6 iyo wax la jiro. kadibna halkaas 7 ayaan gelinaynaa, $7 iyo 70 senti ayaa gashanay. kadibna $7 hele, lacag walba oo rabto ayaad meeshaas gashanaysaa, $20 waxay noqoto baxa ahaatay. kadib waxaan dheynaa next step adheena. kadibna meeshaan waxaa gelinaysaa your phone number, numberkaada haddoo rabo Somtel ahaado ama haddoo rabo hormuudkaada waa gashanaysaa. meeshaan marka addresskii aan Coinbase soo copy gareysanay oo aan rabno lacagta inaan ul diro ayaa meeshaan paste ku dheynaa, wixii intaas ka dambeeyo waxaa taabaneynaa next meesha ku qoran tahay taabaneynaa. kadib waa kana operationka uu noo ogolaaday. kadibna numberkan ayaan lacagta ku diraynaa, numberkan waa hormuud. haddaa rabto mobile address haddaa haysato kor ayaa ka qoran kartaa, hormuud le waaye, wax ku wareerinayo oo adiga ku wareerinayo ma aha. hormuud sida lacagta loola diro waa garanaysaa sida rajeynaya.
kadib meesha waxaa imaanaynaa oo lacagta laga diro. Ananka Somtel isticmaalnaa, laakiin Hormuud aad isticmaashid kaas waa ka tirtiraysaa. Waa nambarkii caadi Hormuudka aad garanaysid. meesha aritaan lacagta ku soo diri kartaa. Hadda aniga waxaan isticmaalaynaa Somtel 812 xidig. meeshaas waxaan gelinaynaa lacagta ayaan gelinaynaa $7 iyo 70 senti. wixii intaas ka dambe send yaa leenahay. kadibna waxaan gelinaynaa pinkana lacagta inuu dirmaysaa marka. kadibna markaas saas dhahdeed pinkaada gashinaysaa. kadib lacagta waa diranta. kadibna aapka u laabanaysaa. kadib markaa lacagta dirto meeshaan nambarka lacagta kasoo dirta ayaad gelinaysaa. you payment number or address ayaa lagu dhahay. marka nambarka lacagta kasoo dirtay ayaad gelinaysaa. Somtel lacagta kasoo dirnay kadibna waxaa taabanaynaa confirm halkay ku qoran tahay confirm. waan dhameystirnay, waa qaybtii ugu dambeysay. confirm la taabanaynaa. kadibna waxa uu daba thank you oo dhahay you for operation. marka bitcoin ka aad ka sarfanaysid bitcoin marka lagu soo diraayo oo aapka ku soo diraayo Coinbase mar walba waxay qaadataa 30 daqiiqo ama wax ka yar ama 30 daqiiqo u badan. marka wixii intaas ka dambeeyo way ku soo gaaraysaa. waxaa taabanaynaa si aan u hubino lacagta. meeshaas my account ya taabanaynaa. kadibna my exchanger meesha ku qoran tahay si taabanaynaa. kadibna lacagta ugu dambeysay aad dirtay oo aad kala sarfatay kadib nambarkaas ku dhufanaysaa halkaas ku soo qormo. kadibna waa kana operationka waa kana marka waiting iyo pending. marka waxa waaye 30 daqiiqo wax ka yar ama 30 daqiiqo kadib ku soo gaaraysaa. bitcoin ayaa saas bitcoin marka lacagta lagu diraayo cabaar ay maqnaanaysaa. lacag walba meesha aad ku soo dir. marka waan sugeynaa 30 daqiiqo gudaheeda insha Allah. meesha waxaan rabnaa marka inay noo soo qoranto confirm calaamada saxda ah. marka asxaabta waa taas waan soo gaartay oo you received bitcoin waa kaasa. haddana bitcoin ka waxaa Coinbase galeena. Coinbase confirmation kiisa ayaaba iska adag. Coinbase galeena marka lacagta deena soo gaartay de kale. marka waa kaas asxaabta na soo gaartay mujada $7. waa kaas completed mujada statuska completed. waa kaas markaas qaabkaas ugu sarfan kartaa bitcoin haddii aad rabto. qaabkaas ugu sarfan kartaa haddii video kalena qaabka loola baxo bitcoin kana waa ka soo diyaari doonaa insha Allah. sidoo kale haddii caawinaad u baahanaato nambarkan ayaa si free ah ku caawinaa mar walba u taagan inuu ku caawiyo. sukorta aapka galena nambarkan oo WhatsApp-ka uu la xiriiri kartaa. nambarkan ayaad si toos ah u la xiriiri kartaa haddii caawinaad u baahanaato. saa ku caawi doona insha Allah. sidoo kale qaraabtada waa xisaaban kartaa. coin-ka aad rabto halkii bitcoin inta uu maro halkii Tron inta uu maro waxaas dhan kor ayaad la socon kartaa. waa kana meeshaan ku qor kartaa halkii bitcoin aad wuxuu maro 38,000 oo dollar oo maro ah. Tronka halkii Tron meeqo maro ah daraadid caadi wax walba saku 3RX loo soo gaabiyaa. TRX halkii Tron meeqo maro ah sanadaha soo socda inuu kor u kaco laga yaabaa. Tron waa kana asina wuxuu maro 7 senti. qaabkaas uu sarfi kartaa waxaan rajaynayaa inaad fahanteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.